Israa'iil oo la sheegay inay ka jawaabaysay xog warisay in Iiraan maalmo gudaheed ku helayso agab ka caawinaya samaysashada 15 madfac oo nukliyeer ah ayaa aroornimadii xalay weerar ku ekeysay Iiraan ka oo sababay khasaare aan filashada ku jirin. Israa'iil oo weeraradeeda ku beegsatay xarumo ciidan iyo goobaha farsamada agabka nukliyeerka ayaa khaarajisay taliyayaashii ciidamada waddankaas, gaar ahaan taliyihii guud ee ciidanka Iiraan Cali Bagheri iyo taliyihii ciidanka la yiraahdo ilaalada kacaanka Hussein Salami. Saddex saynisyahan oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya khubarada nukliyeerka dalkaas ayaa sidoo kale Yuhuudda howlgalkan ku khaarajisay, taa oo fadeexad aan filashada ku jirin ku noqotay xukuumadda Tehran. Hoggaanka Iiraan Cali Khamenei oo dhankiisa horey ka magacaabay beddelka taliyayaasha ciidan ee Yuhuuddu dishay ayaa ballan qaaday inay wax uu ciqaab adag ugu yeeray kaga jawaabi doonaan duulaanka Israa'iil, taa oo ka dhigan inaan goobjoog u noqon karo dagaal toos ah oo markii ugu horeysay taariikhda ay isku wajahaan labadan dhinac ee weligoodba xiisadda dagaal ka dhaxoognayd aanse marna kala reebta ku kulmin. Iiraan waxa ay docda kale eedaynta duulaankan wax ka siisay Mareykanka oo sheegtay inuu fulinta door sare ku lahaa. Ogow waxaa dhammaaday 60 maalmood, waa 2 bilood oo Trump qabtay inay Iiraan xal kaga keento heshiiska nukliyeerka, taa oo ka dhigan in Israa'iil ficil ahaan u fulisay cawaaqibka ka dhashay dhammaadka muddada Trump qabtay Tehran. Halka marka ay joogto inna kan dib u eegnay waxa uu weligiisba salka ku hayo khilaafka Yuhuudda iyo Iiraan. Ilaa 1970-yadii ayuu taagnaa khilaafka ka dhaxoogan Yuhuudda iyo xukuumadda Iiraan, oo Israa'iil waxa ay weligeedba Iiraan ku eedeysaa inay taageerto dhinacyada ay ishayaan, waa Xisbullada Lubnaan iyo Xamaasta Falastiin. 1982 Iiraan waxa ay tababartay oo hubaysay Xisbullah waa intii uu socday duulaankii Yuhuudda ee Lubnaan. Sidoo kale Israa'iil waxay Iiraan ku eedeysay inay xoogagga Shiicada la safnayd intii uu socday duulaankii Yuhuuddu ku qabsatay koonfurta Lubnaan. Docda kale Israa'iil waxay ilaa 1979 ku eedeysaa Iiraan inay si aan gabasho lahayn u taageerto xoogagga iska caabinta Falastiin, taa oo bilowgii ahayd khilaafaadka loo arkayay inay sababi karaan dagaal ka dhex qarxa labadan dhinac. Haatanse halkaa waa ay ka tagtay oo Yuhuudda oo ku doodaysa inaan Iiraan nukliyeer haysan karin ayaa mar qura dhantaashay taliskii ciidanka Iiraan iyo khuburadii nukliyeerka. Tan yaabka lehna waa sida fudud ee midaasi ugu suurto gashay. Israa'iil ayaa sheegtay inay 20kii sano ee ugu dambeysay beegsanaysay wakiilada bariga dhexe ee Iiraan, haatana la gaaray xilligii ay bartilmaameedsan lahaayeen madaxa abeesada oo ay ula jeedaan madaxda dalkaas, halka dhanka kale laga warsugayo jawaabta ay Iiraan ciqaabta culus ugu yeertay, taa oo la filayo inaan dhicisteedu waqti badan qaadan doonin. Dhacdadani waxay markiiba saameysay suuqyada dunideena oo goor horeba waxaa kacay qiimaha shidaalka adduunka, halka docda kale ay duulimaadyada saameysay oo qayb ahaan wadamada bariga dhexe hawadooda xirteen sida Jordan, maadaama laga cabsi qabo isweydaarsiga madaafiic culus oo labada dhinac dhex marta saacadaha soo socda.